بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وسلام على عباده الذين اصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan jeclahay meeshan aan maanta codsi uga diro iyo talo macnaha si kal iyo laaba ah laba qolo labadaas qolona waxa weeyaan dowladda Soomaaliya guud ahaan hadday noqoto madaxtooyada hadday noqoto golaha wasiirada hadday noqoto baarlamaanka hadday noqoto maxay garsoorka guud ahaan dowladda Soomaaliya sidoo kale waxaan codsi u dirayaa iyo fariin iyo talo nimanka ka soo horjeeda ee la dagaalamayo hadda magaca cusub la siiyo la yiraahdo khawaarijta Soomaaliya aan ku horeeyo ugu horreyntii waxaan leeyahay horta khawaarij loo baxshay hadda waagi hore shabaab la dhihi jiray laakiin absolutely nimankan khawaarij ma gaaraan runtii magacaas waxaan is leeyahay waa lagu qaldamay way ka hooseeyaan khawaarij umana dhawa haddaan khawaarijta wax ka sheego dad badan oo Soomaaliyeed aqoon uma laha khawaarijta way maqleen way xun yihiin iska yiraahdaan laakiin qofkii doonaya oo indhihiisa asagu inuu ku fahmi raba iyo aqligiisa uu arki karaa nimankan oo isla khawaarijna u dhaweyn macnaha agtoodana aysan mari karin runtii khawaarijtu waxay ka leexdeen cali bin abi talib radiyallahu anhu mabda'ooduna waa iska caday mabda clear ayuu ahay waxay diidanayeen xukunka in la kala dhaxlo sidoo kale waxay diidanayeen in diinta islaamka ku dhaqankeeda laga hor yimaado ay diidanayeen cali maamulayna la dagaalameen dad shacab lama dagaalameen maxay hata ii sheegeen khawaarijta maanta jirta ee la dhihi karo khawaarijtii cali bin abi talib la dagaalantay ayaa maanta jirtana waxa weeyaan waddanka Cumaan la yiraahdo weeyaan waddanka Cumaan miyaad maqasheen asagoo isqarxinaya waxa isqarxinaya miyaad ku maqasheen asagoo duulaya waddanka kale ku duulaya miyaad maqasheen macnaha takfiirin dhexdooda oo la takfiirinaya miyaad ku maqasheen maya kuma jirto ibaadi yiraahdaan ibaadi la baxeen magacaasi la baxeen laakiin asalkooda khawaarijtii cali bin abi talib la dagaalantay weeyaan marka nimankan uma dhawa khawaarijtaas mabda'a khawaarijtuna waxa weeyaan runtii ma rumeeyaan axaadiista aan rumaysanahay anagu oo saxiix bukhaari iyo saxiix muslim iyo kulligood ma rumaysna maxay hata ii sheegeen aqwaal culamaana iska badaaba maxay hata waxay leeyihiin ayagu waxyaabo u gaar ay leeyihiin ayagu oo ay samaystaan kutub u gaar ay leeyihiin kutubtaasuna muhiim uma aha runtii waxa muhiim u ah qur'aanka ay raacaan ayagu wax ka sokeeyana ma rumeeyaan inkastoo laga yaabo inay si khaldan u turjumaan qur'aanka oo aayad meel ku socota ay meel kale aadiyaan laakiin haddana waxaan qirayaa dad aftahama inay yihiin marnaba aan caadi yahayn ummadaha kaletana cid duulaan ku yihiin oo gaar ma jirto necab yihiin shiica wala sunni kulligood waa isugu mid weeyaan marka khawaarij ma gaaraan nimankaano umana dhawa magacaas waa lagu kufaan leeyahay waxaan u bixi lahay anigu haddaan magac u bixiyo matalays ml ayaan u bixi lahay ma la ayaan u bixi lahay maatadii laayeen ibri ka dhigeen rag iyo dumar iyo saqiiro iyo dumar uur leh iyo mid ilma sida iyo mid ilma u xamaalida subhanallahi alazim wala hawla wala quwwata illa billah masaajidka ku dilayaan ceelashii duugayaan baabuurtii gubayaan magaalooyin gubayaan war waxay sameynayaan adduunyada waxaanan hubaal ah waxaas inay soo fareen dad aan dhaqan Soomaaliyeed iyo akhlaaq Soomaaliyeed weligoodba aan aqoonba inaba Allah ka dhigay raad ku lahayd ayaa waxyaabo noocaas u soo dajiyay oo soo faray walaalayaalow Soomaali baa tihiin dad Soomaaliyeed tihiin wiilashamada tihiin walaalaheena tihiin nimayahow waxaan idin leeyahay billahi calaykum waxaad ku socotaan qalad waay waxaan idin xaqiijinayaa oo maanta idin sheegaya oo idin kula talinaya oo idin ka codsanaya inaad fahamtaan dadka Soomaaliyeed oo idin ka soo horjeestay waa naceen waxaad wadaan diin uma arkaan diintiiba ka baxayaan dadku daraadiin uga baxayaanba sababtoo aad ka deedeen nafteed ku keentay dadkii dad meel ay ka yimid aan noqon ma yuhuda mad kaleeta balaaya wax idin soo farayso wax idin soo dejida kaartooyin idin soo dejida oo dadka ku laayineysaan oo ku baabi'ineysaan oo diinta uga saaraysaan kala yaacin iyo kala hufid ah marka nimayahow wallahi waxa idinku sheega ma aqaano matalays way magaciinu qoladaas waxaan leeyahay anigu waxaan soo aqriyay taariikh fara badan oo Soomaaliyeed waxaan soo aqriyay laga soo bilaabo ilaa ibn Batuta iyo wax ka soo horeeyaba maxay ahayd laga ku soo xijay ninka la yiraahdo cadal boqortooyada cadal maxay ahayd ii sheegeen meesha hadda anaga aan awdal waagaas cadal la dhihi jiray Axmed Gurey taariikhda Axmed Gurey maxay ahayd taariikhdii ninka la yiraahdo Sayyid Maxamed Abdullah Xasan taariikhdii SYL taariikhdii Maxamed Siyaad Barre taariikhdii burburkii iyo xilligii dagaalkii sokeeye oo wixii ka dambeeyay Maxamed Siyaad Barre iyo adinka hadda waxyaabahaas oo dhan ayaa soo dirsay waxaana ii soo baxday ficil isku mid ah ayaa soo baxaysa markaad fiiriso waxaana weeyaan Soomaalidu waxay taqaanaa wan weeraan dhinacaan u ordaysaa 200 kilomitir haddii cararayo gadaal cararayana soo jeesama gadaal u cararaya dib u gurasho leh ku jiraya sanado fara badan marka waxyaabahaas waxa weeyaan waa arrin aan loo baahnay runtii
haddaan ku horreeyo taariikhda ninka ibn batuuta wuxuu leeyahay 4 qabiilo ayaa degta Soomaaliya 4taa qabiilana way dagaalamaan waa 2300 oo sano xilli laga joogo weeyaan 4 qolo filaaro iyo warmo ay ku dagaalamaan uu leeyahay sida hadda ay tahay ayuu u sharaxayaa macna kasoo gudub waxaa timaadaa taariikhda awdal Axmed Gurey raximahullah dhulka xabasho dhan ayuu qabsaday waxaa dhacday Soomaalinimo waa iskala dhigtay hebla saana ka laabta xagga iska daaya bb bilaabatay wadamo shisheeye isku taagay oo halkii boqortooyadii ii sheegeen waagaas xooga badneed oo nimankii la jiray Portugiiska wax noocaasa waa la isugu tagay baabaha laga dhigay dhulka la simay waa la soo socday Sayid Maxamed Cabdulla Xasan soo baxay oo Ingiriiska ka dagaalamay wixii Soomaaliya oo dhan way raaceen si fiican loola saftay Ingiriiska uu ka adkaaday hilfo u qaaday markii la rabay inuu walaaltinimo abuuro soo dhaweyn abuuro maxay dadkii soo dhaweeyay ayuu wuxuu bilaabay kana xujoobay kana sayidkii kor yimid kana ilxun ugu fiirshay kana mucaaraday hal kharijiyo dadka isku dir cabsi argagax ummadda oo ka guurtay waxay u guureen dhinaca gaalada u guureen saasoo ku baabaasna xukunkii iyo maxay maamulkii iyo higsigii Soomaaliyeed halkaas ku baabaa soo soco ujuuraan heblo waxa dhan kulligood waa isku taariikh weeyaan imaad nimanka la yiraahdo SYL waxay sameeyeen dalkii Soomaaliya oo dhan ay xoreeyeen guud ahaan gees Soomaaliya meel joogtaba NFD meel walba waa isku xireen markay xukunkii dhaliyeen oo dawladda Soomaaliya ay abuureen oo dawladda Soomaaliya ay soo baxday ayaa waxa bilaabatay ana reer hebela ana majarteeniya ana hawiyaaniya ana heblaaniya ana baba qaraaca bilaabatay wala kala baxay corruption iyo qabyaalad cirkay martay waxa ka faa'iideystay militariga Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre hogaaminayay militariga Soomaaliya waa isku dubarideen laakiin sanad gudihiis ay iyaga naftirkooda isku soo jeesteen على كل حال وان إذا كذا شيء كما تاريخ محمد سياد بري ودنكي basically dadku soo dhaweeyeen dadka Soomaaliyeed way wada jeclaayeen in laga takhaluso musuqmaasuqi xoogaa dhowr sano ayaa wadanka kor soo kacay militarigiisa la dhisay awood u yeeshay dhaqaale u yeeshay wixiiba amsaxa laga dhigay markii la isku taagay ruush 24 saac ruush wadanka uga baxaale macnaha fudaydka iyo degdega yaab kale Ethiopia la isku taagay Hiblaa la isku taagay maxay qabab guuxana ka dheeraynay barrag maxaa dhacay kuwa dadna ugu xigaana loo adeegsaday Yemen iyo maxay isheeg Libiya iyo wax daran iyo waxa la qooriyo oo la suuqa inta markaas dhulkana la simay dawladda Soomaaliya ku baabaa marka waxay ka tageen burbur iyo hoog iyo waliba xumaanta kale ka tageen waxay tahay guulwada ay dheh qabyaalad qiiq macnaha habar reer baadiya islaan reer baadiyaha generaal kala soo baxaysa maxay jeebka kala soo baxayso waligeed aan skoltiga RBC loo dhigin wax qaribadaati ugu warbax subhanallahi alazim waxa la gaarsiiyay Maxamed Siyaad Barre wal wala hadlay waxa waddanka burbur ku socda warniyo halkeen wuxuu diiday wax la yiraahdo wada hadal iyo wax la yiraahdo waan iyo wax la yiraahdo tanaasul ayuu ka soo istaagay ilaa ay kaliftay in ummadii la hubeeyo shacabkii oo xabad mooyaane hal kale u safuray xabadii la qaatayna waan aragnaa wixii aan ka dhaxalnay Soomaaliyeed haddii aan deynana faa'iido ma ahayn haddii aan la dagaalanay faa'iido ma aanan gaarin nasiib darrada ma haysto Soomaaliya haddii aan hadda waxaan idin leeyahay nimayo bartii taaganta maanta Soomaaliya way ka soo horjeedaa total horta waa inaad ku qanacdaan Soomaaliya waa idin ka soo horjeedaa way naceen waxaad wadiin uma arkaan diin uma arkaan Soomaalinimo uma arkaan wadaniyad wax alla waxay u arkaan burburahay ma jiraan iyo kharbadaad hay waad u jeedaani laba kala doorta Soomaaliya inaad u celisaan hubtii ay ku jiri jirtay oo qabiilooyinku inta hubka wada qaataan hadhow si loo kontrolo la waayo oo kontrolkii uu adkaado Soomaaliya burbur hor Allah ay bilowdo iyo inaad nima raga noqotaan oo tiraahdaan warmayahu Soomaaliya annaga haddii aan dhibaato idin ku nahay waa ka fariisaynaa meelan ka fariisanaynaa wax siyaasad la yiraahdana shaqo ku barihin nabadan idin kala shaqaynaynaa waxaan aad ku haminaysaan oo qarracda oo dibadda la idinkaga sheegayana iska dhaafa koox xiblaan galnay kanamil dadkan Soomaaliya leeyahay Soomaaliya iskale Soomaalidu waxay rabtaan shaqaynaya Soomaalidu dhinac ka raaca wanaag ka shaqeeya dalka burbur u horseedinina in qabiilooyinku dhan la hubayo u horseedinina wadankii inuu fawdo galo u horseedinina ilmaada reyaal soo sanad kula talinaya talada ugu wanaagsan oo idinsiinaya taas weeyaan ka faa'iideysta maanta wallah taariikh cusub qora haddii kale waxaad ogaataan
soomaaliya waxay gelaysaa god hor alla ah oo idinku sabab u tihiin ay gelaysaa hadda dhibaatada u geysateen ayaaba dhibaato ka badatay intaa ku ekeeya caanadaati waa la daba qabtaa anu intaasaan idinkula talinayaa qaybta labaad waxaan u geliyaa dowladda soomaaliya waxaan leeyahay dagaal ayay cilaamsay dowladda soomaaliya maxay ahaato warbaahinta si fiican u isticmaashay oo lacag la joojiyo hablaha la joojiyo wax noocaas la joojiyo horta hufnaan waa inay jirtaa dowladdu markay wax ku dhawaaqayso waa inay diyaarisaa intaysa ku dhawaaqin hawshan qaabkii loo qaban lahaa waayo wuxuu maaha jabhad iska ordaysa maaha waa nidaam dowladeed weeyaan marka inaad marka hore diyaarisaan oo istaraatiijiyad sax ah oo lagu howlgelaya aad diyaarisaan midda labaad dagaala socda dagaalkaas nimankii waa la eryanayaa nimankii al-shabaab la yidhahdo waa sii socdaan haddii aan maamul lagu bedelin meeshii laga qabto nimankaas waxaad ogaataan god ka dheer kii al-shabaab aan ku dhacaynaa soomaalida waxay tiraa gaalka dilgartiisana sii wallaahi al-shabaab dalka waxay soo gaarsiiyeen xilli macnaha la quustay oo soomaaliya laga quustay ayay soo baxeen waxayna soo gaarsiiyeen mooran moor xukun lagu tartami karo wax la xukumi karo maxay ahaato nin fanjooqo oo meel taagan oo qaraclaha uusa jirin ayaga uun ay noqdeen iyo wixii kaleeto kasoo horjeeda ayay soo gaarsiiyeen dalka marka waxaan leeyahay nimankaas haddii xukunka laga qaadayo oo xukunka sida macnaha sida hadda ay ku socoto way socdaan magaalo walba oo laga qabto yaan la dhaafin ilaa maa loo sameeyo maamul saxa nabadgelyadooda saxa aargoosi la mamnuuco gabar la xoogo la mamnuuco xoolo la biliqaysto wiil yaroo meel istaaga mid amar diida sameeya mid meel fanjooqsada waxaas laga zuuliyo maamul lagu bedelo waayo nimankan maamul ay ahaayeen weliba istraatiiho aan marnaba caadi yahiin ahaayeen maamulkaasna waa in maamul kale lagu bedelo ka fiican ayaga ka fiican oo dadka dhibaynin marka saasaan dowladda soomaaliya kula tali lahay waxaad ogaataan maanta taariikhdu waa 6 bisha la yiraahdo November 2022 hadalka aan ka hadlayo meel ku qora Soomaaliyeed talooyinka aan soo sheegay oo nimanka kalena u jeedisay dowladda Soomaaliya u jeedinayo haddii la sameeyo waayo waxaad ogaanaysaa Soomaaliya 30 sano ka cabanaynahay 100 sano hore la in maxay dhibaato ay jirta iyadoo haddana 100 sano ay dhibaato soo socoto Soomaaliya dad badan u maleeya dowladda Maxamed Barre wax noocaas iyo dagaalka sokeeyay in dhibaato ahayd markaan dhashay dagaal socday aabahay markuu dhashay dagaal socday awowgay markuu dhashay dagaal socday weligeed Soomaaliya naxariis ma aysan arag dowladna ma aysan helin nidaam fiicanna ma aysan helin dib iyo shidii ku noolay Soomaaliya ilaahayna ma badina iyada asbaday tala xumadooda asbaday waxaan leeyahay dowladda Soomaaliya maanta ka faa'iideysato jaanis weyn mudane xasan sheekh maxamuud iyo xamse cabdi barre walaalayaal taariikhda maanta idin hortaala taariikhdaasna waxaad ku samayn kartaan taariikh cusub oo Soomaaliya ay yeelato inaad nidaam samaydaan dalka dib u xoreyn sax revolution sax la sameeyo oo cadaalada oo degan oo nidaamsan oo exactly dadka Soomaaliyeed la jaan qaadi kara inaad samaysaan ayaa idin hortaala maanta saasana idin kula tali lahay idin kala codsan lahay wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh